بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيديوgan wuxuu ku saabsan yahay horumarka bulshada iyo siday uga qayb qaadan karto bedelidda dhaqamada dib u dhigaya ummadda iyo hirgelinta siyaasadaha iyo qorshayaasha loogu talagalay inay ummaddu ka horumarto. Dhaqamada dib u dhiga dadka mid ka mid a ayaan soo qaadanaya oo ah muwaadin baa imanaya xafiis dowladeed, qofkii ugu sarreeyay bas uu rabaa inuu arko ama uu la hadlo. Bilmatalan wasaaraddu imanaya, qofkii wuxuu leeyahay wasiirkan rabaa ama wasiiradda. Runtiina qofkii ma uu eegayo agaasimayaal inay ka sokeeyaan, agaasimo guud inuu ka sokeeyo, wasiir ku-xigeen inuu ka sokeeyo. Taana waxaa timaada aalaaba in wasiiradii ay awood u heli waayeen inay shaqeeyaan sababtoo ah dadkaa wareerinaya awgeed. Marka bulshada laftigeeda lafdhabar ayay u tahay isbedelka loo baahan yahay in laga dhex arko ummaddii iyo oo ku saleysan horumarka la gaarayo. Hadda inaga ka wasaarad ahaan, wasaaradda horumarinta haweenka iyo arrimaha qoyska, waxa weeyaan markaad timaado lagu baaro, soo gudubto xafiiska xiriirka dadweynaha ama martidaad imanaysaa, waad fariisanaysaa. Haddii bilmatalan tusaale ahaan kasoo qaad caruur xanuunsan baad warbixintooda wadaa rabtaa in la kaalmeeyo, foom baa lagaa buuxinayaa, agaasimihii waaxda caruurta ama madax qaybeedyadii ama la taliyayaashii joogaa lagu gudbinayaa. Ka war haddaa intaa ka gudubtid waxaasoo dhan aa dhahdid waxaa u maxay ahayd gudbaya wasiirkii shaqadaas ma laha, waax baa leh, shaqaalaa leh. Shaqaaluhu way u carbisan yihiin, diyaar bay u yihiin in ay qofkii muwaadinka ah baahidaas haysay ay kaalmeeyaan, ay wax la doonaan, u qareemaan, wax la hagaan, wax la dejiyaan. Laakiin haddii qofkii uu yiraahdo wasiirkii aan toos ugu gudbayaa, markii wasiirkii uu la kulmina uu iska soo noqnoqdo maalin walba, waa waxyaalahan aragnay ka mid tahay. Marka waana waxyaalo laga fiican yahay runtii. Jaranjarada shaqada haddaydan ilaalin, horumarkii aanu idinla tiigsanaynay ma awoodno inaan samayno, waayo waqtiga waxay noqonaysaa inaan gelino hal shaqsi. Waxaan danaynayno waa inaan ummadoo dhan aan horumarka u horseedno hadduu ilaahay yiraahdo. Marka dhaqanka noocaas inaan bedelno weeyaan. Haddii markaaseeta intii qofkii uu agaasinkii la kulmo ama madax qaybeedkii la kulmo la taliyayaashii oo wax ka soo naasacdaan waayaan oo wax la qaban waayo, hadda markaas moogtahay waxaa imanaysa cabasho oo in wax laga qabto weeyaan arrinkii oo sidaa wax loo qaadaa dhigo markaa wasiirku arrinka soo galo. Laakiin ka hortoow hadduu qofkii intuu martida xataa iska soo gudbo uu dirito u soo baxo uu dhaho wasiirkan la hadlayaa, marka wasiirkaasayta markuu 4 saac maalintii uu geliyo dad la kulan kaliya asbuucii 6daas cisho